بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan arkayay wariyadii weyneyd ee qaaliga ahayd ina samriye oo soo laabatay iyo Soomaalidii oo wada qaylinaysa qofka bini'aadankii horta gabadhu de markay wax dhasho way isbedelaysaa teeda kale waxa u si telefoon bay soo galaya codku iga go'aya warbal raali ahaada bismillaah codkan waan dul saar qofka bini'aadankii meeshii taagnaan maayo oo da'dooda ku soconaysa laakiin anu gabadha waxaad ka sheegaysaa aad ku sasteen ma garanayo hooyay noqotay inantu carruur bay soo dhashay say idin sheegtay 4 awlaaday dhashay gabadhu markay dhasho way isbedeshaa wad qurux badan tahay yeena niyada ka dilin dadkan bilaayoon ka sheekaynaya waa taa qurux leeyahay halka daashoonaysa waxaan kula welcome waa lagu baahan yahay waxaad ahayd gabadha badan role model oo ay ku daydaan oo qurux badan soo dhawowday dadkaagii oo ku jecel qalbiyo ku jecel ku soo dhawow waan ku leenahay waxaan kale oo arkay sawirka halkaas naaga iyo niman qolal saaran oo soo shitay waa caadadiisa ninka xune dumarka xigtaa inuu iskaga soo shito markuu arko gabadh sidiisa banaanba haday gabadh uba ay arkaan inay fooda la gashay 40 ama 30 iyo something noqotay waxay u yaqaaniin habar dhimatay oo cajuusada inay qol isku soo xidhay jecel yihiin laakiin aniga waxa wax walba igala xanuun badan tanaaga ee daba jaran iyadu ninka loserka ah ee gabadh kale ku soo shidanaysa ee rabta inay gabadh quruxda badan qalbada ka jajabiso ay tiraahdo oo habar weeye intaas oo hoos qarinaysa maxaa ku helay maxaa ku dhici lahaa saas oo qurux badan oo egtahay inside iyo outside boo ka qurux badan tahay 15 jir 20 jir idinku abida ka qurux badan tahay samriye ma u ekaan kartaan gabadhan way qurux badan tahay balaayo ma qabto dhibaato ma qabto iyadoo idin hor imaanino idinkuma oranin aniga cajiro dhibaato ayaa igu shidan alla waxa ay haystaan niyadii weyneyd Soomaali aad bay ku jeceshahay raas casayr illa ma raaska booni soo dhawowaan ku leenahay waxaan arkayay dad le ninkii baa xumeeyay ninkii baa ku xumaaday waxaan arkayay dad hoos u galaya badaheeda oo le ninkii baa ku xumaaday kan baa ku dhacday dadka maxaad u qoriyaysan afkooda uga doontaan wax gabadhaas idin soo hor fadhiisan idin meen oran ninkayga ee xumeeyay Soomaali baan laga badbaadayn meel walba waxay taagan yihiin xumaan iyo fadeexad dadka kale gabadha haday yara weynaato ma ceeba maxaad ugu mashquulshan dumarka da'dooda ilaa kuma mashquulsan kanina bahe nimba kuma mashquulshaane maxaad ugu mashquulshan markaad gabadh ragtaan maxaynkan sidan maxay tahay gabadha haday weynaato naf malamiya gabadha haday weynaato qurux malamiya gabadha haday weynaato qiimaheedu miyuu luma war dadka bullshit-ka kala taga bila aadan ma tihidine gabadha xaynka ku dhigan waxaan leeyahay gabadha ka fuqa oo gabadha daaya gabadha hadii uu nin xuni xilogube haduu helo way xumaataa marka soo dhawaan leey ka maydhano wixii ku soo maray adduunkan u nacebahay su'aal aakhiraadiyada ereyada naxusta xageeda daymaantiyo yaadi ku soo maray misaase deeqafra saaxiibaday noolow jeceliyaa heeseed kaliya laab teeda kale gabadhay waxaan ku leeyahay shaqadaada waxaad qabanaysid maalinta aad nin uga tagtid dartiis wallahi waa maalinta baabaaday ee noloshaada ku ciyaartay ee isku tumatay noloshiina iyo shaqadiina wata guurka markaad gashaan waxa aad jeceshihiin haddaad nin dartiis isaga bedeshaan uga tagtaan waxaad ogaataa maalintaas inay tahay maalinta baabacaaga iyo hoogaaga aad adigu gacantaada ku diyaarisay dulqaada wixii ku dhaca nin xun ka rooro walaalayaal intuu idin baabi'ino xirada idin weydaarin xirada uun buu weydaariyaa wax nin xume ninka xuni waxa ma hagaajiyo wuxuu baabi'iyaa uu la haraa gabadh walba marka nin xuna iskaga carro walaal ninka xun ka roor intaan la fahaaga duban wuxuu gabadh qurux badnayd jiiqsada intuu meel ku xidhay saa u tuujiyay raandis dheer ma laha baan idin ku iriyo wuxuudu watan bareeri ma garateen nin xuma iska ilaaliya ninka wanaagsani waa lagu dagaayo waa geed hadweyn laakiin ninka xuni ula haraa dumarka ula haraa carruurta ula haraa dadka ula haraa dalka ula haraa nin xuma iska ilaaliya